labada kun iyo 15 kulaha ilaa wadanka bahala galeen oo qaylada ugu horeysa maanta Caanaboore ka yeeraysaa si fiican dhagaha loo furo sheekh kamid ah shuyuukhda culimada ama Soomaaliyeed baa wuxuu ka dayrinaya ama ka digaya Caanaboore la hubiyo waxa kamid ah Caanabooraha laftiisu hadii alla ka dhigo awoodda raganimada hadii uu ninku caadaystay inuu cabo Caanaboore awoodda raganimada uu hoos buu u dhigaa habeenkan Caanaboore cabuu ku leeyahay si fiican wax u karbaashaa bash jinkii ugu horeeyay oo kaamirad qabto way kula subxaanallah hadda nin miya misnaag way naag anaga iska caminanay nin inuu yahay laga yaabo oo xaaladuhu jeexjeexeen xariif way kula haduu agoosto ku dari lahaa mayada u soo jawaabi leed wariya wallahi waa siyaasad agoosto u gambiyay jawaab uu helay sax waa siyaasad waa yahay dhifid oo jawi ku jira soo baga ku ilnayso tanina waa heer kale oo eegma ah salaamullaahi calaykum asxaabtayda maantay waa barnaamijkii aragtida dadweynaha armaanta maxaa idinka qoslin doona oo idinka yaabin doona baayahay waxaan idin wadaa maanta aragtida dadweynaha wax badan maanta waa idinka qoslin doona yaaran daqiiqadaha iyo waqtiga idinka shaxaadine aan barnaamijka gudaha u galo muuqaalka koowaad ee aadiyaha waxay tahay Caanaboorihii baa lagu soo galay qaylada ugu horeysa maanta Caanaboore ka yeeraysaa si fiican dhagaha loo furo sheekh kamid ah shuyuukhda culimada ama Soomaaliyeed baa wuxuu ka dayrinaya ama ka digaya Caanaboore la hubiyo waxa kamid ah Caanabooraha laftiisu hadii alla ka dhigo awoodda raganimada hadii uu ninku caadaystay inuu cabo Caanaboore awoodda raganimada uu hoos buu u dhigaa ama sur'atul qadfi baa yimaado sida aad hadda maqlayseen sheekhu wuxuu yiri Caanabooraha cilad bileeyin oo ciyaaraha barafka baa ka caajisaysa Caanabooraha laga fogaado commentiyadii marka loo qoray aan la wadaago commentiga wuxuu leeyahay sheekhu koob Caanabooraha marka la cabo baaba garoonka la sii gali jiray sheekhu nimanka Caanaboore lagu soo korshay si waa dumarkii waxay leeyihiin nimanka Caanaboore lagu soo korshay maxaa tala ah allo ceeb astur Caanaboore mar hore idin kala taliyay baxaa dadkan waa dadka buufiska hore u sii qabay ninkan buufis hore u sii qabay wuxuu leeyahay Caanaboore mar hore idin kala taliyay Caanaboore awlaysan quud nin weyn ahayn uu ku leeyahay hadeerna cilad baba laga sii sheegay sheekhu wax kale ma hayne Caanaboore naftu ku celinaa uu taag wallahi billahi tallahi been ilaahay Caanabooraha loo baahan hafteemka iyo hay ragow Caanaha iska yaray dumarka wixii loo sheego ay automatic u qaadanayaan ragow Caanabooraha iska yaray ay sheekhu Caanaboorihii ayuun baad hor carartay waa maxay weerarkan aad Caanaha ku qaadi kulaha mise shirkadaha Caanaha soo saara dagaal idinka dhaxeeya waa mid kamid ah ganacsatada Caanabooraha Soomaaliya soo galiyay wiilkiisii oo comment sheekhu ku weeraray sheekhow anigu Caanabooraha ku istaarmaaba xariifkan waa qaylay ilaahay diinta soo qaylay muuqaalkaas arkay wuxuu soo qoray sheekhow aniga Caanabooraha ku istaarmaaba sheekhow doombarku waa xay ribalay waa Caanaboore walaal badso habeenkan Caanaboore cabuu ku leeyahay si fiican wax u karbaashaa bash intaas oo dhaafeen intaas wixii Caanaboore ilaahay idinkaga qoray iyo wixii hore u cabuu ilaahay idin calfo hadda intaan hore u cabi jirina bal laga fiirsado cilada timidaale sida halkaas uga jeedaan muuqaalka labaad waa wiil iyo gabar soo guursaday oo sariirta jooga oo romantic macna aan dhihi karnaa adiga qolaan hor carartay qoladan isbuucii dhaweyd Facebook iyo TikTok hor carareen nidaamkaasi soo kordhiyeen Soomaali afaaraas aragtay romantic qaangaaray commentiska abaabaha la isaga dhigay bal commentiyadii loo qoray ay idin fasaxo commentiga wuxuu leeyahay waa hayr waa nooc jacaylka kamid uu ku leeyahay dheegaag ayaa la dhahaa dheegaaga caashiq iyo dhimada ciyaarta qaabkii loo baasi lahaa ayaa laga fikirayaa ma koronta ku dhigtay kula maxaa qalajin lahaa romantiga la marwaya macna qeyr wala jacaylka qeyr ma leeyahay qeyrada jacaylka way Soomaaliya yeesina ka wasbixin waaba isku malabsanayaan yaa baaso kaamirada la dul taagan qora hor carartay qora kaamirada la hor cararaysa war dadka kaamirada kala dhamaa
saas waaye hawsha hala bilaabo fiiri steam iskaabulo dulqaadka ku yar wuxuu taa waxa ka dhaadhacsan in muuqaalka saddex hawsha lagu bilaabayo saas waaye hawsha hala bilaabo romantic slow motion amiya dhifiq oo jawi ku jira waxaa wax ka badanay ninku gabadha xagee hayaa isma dhaqaajinaysee waryaani waa war wallahi wararka gabadha meel amu haya ya maxaa kala jirto meel u haya aniga ma u fiirsanayna ninka gabadhu meel u haya meeshii doonta noqoto commentiga nagu sheegto tanina waa heer kale oo eegma ah maya soo bay ku ilnayso tanina waa heer kale oo eegma ah dhifiq walaalkiis intaas uma dhaafeeno jawigiisa ku jiro baashaar waa yahay qaybta saddexaad ba ugu qaybta saddexaad waa qayb fani ah oo aniga xataa si kal ilaaba iga qoslisay wiil baa gabar amra la dhaho messenger kala hadlay bishii abriil wuxuu u qoray salaam calaykum bishii may ama bishii shanaadna wuxuu u qoray waa ku salaamay bishii juun ama tii lixaadna wuxuu u qoray hey bishii toddobaadna wuxuu u qoray waan ku salaamay tii sideedaad buu odayga mashquulay marka tii sagaalaad buu wuxuu qoray assalaamu calaykum see tahay walaal way u soo jawaabtay marka 4 bilood kadib waa xanaaqsanahay maxaa kugu dhacay agost intee jirtay kulaha soomaalida commentigii baa digada la isaga dhigay marka commentiyadii marka arrinkaas laga bixiyay aad la wadaago commentigu wuxuu leeyahay wallahi daacada u qosla way ku tashanaysa miyaa agost xagee jirtay kulaha aniga ku igu jiro sanad ugu xisaabiya kulaha 2019 20 21 22 sanadka markuu dhamaan rabaa see tahay walaal la ii soo qoraa rag salaamu calaykum iska qorow adeeryaalo bilaha iyo sanadada iska hubiya meesha haan hor cararinay sanadada iyo bilaha iska hubiya wariya ilaahay yaqaan oo dinaa maxamed xariif waayo kulaha haduu agost ku dari lahaa mayada u soo jawaabi leed wariya wallahi waa siyaasad agost u gambiyay jawaab uu helay sax waa siyaasad waa yahay adow haddaad maqasho waa taro galka waarun agost talo xagee jiray malaha naaka lagu maqnaa fiiri nin aan 5 bilood loo jawaabina laga masiirooya macna naaka lagu dadka qaar ilaahay maskax nadiif u siiyay fiiri ninkan hadda xal buu keenay jaa wuxuu taagan yahay agost waa bilaha Soomaalida ugu mashquulka badan Puntland iyo Galmudug iyo kuwa kale badan ayaa u dabaaldegay maalintooda marka muu dhaho kulaha calamadii baan diyaarinay oo maskiin kulaha 5 bilood bay ku adkeynayso kulaha markaas intay soo hadashay ku leedahay intay ku maqnayd dharraq macal abuug waa yahay salaam calaykum dadka qamaasajirada isaga qorow bilaha iyo sanadada iska hubiyo waa markii labada ku celinaay waa yahay muuqaalka ugu dambeeya muuqaalkan wallahi waa idin kaga yaabinaya sawir la soo dhigay 2015 page-ka Villa Soomaaliya ba waxa loo daadanayaa iyadoo 2022 ay dhamaad tahay miyay aaminaysan sawirkana u jeedaan 2015 baa la soo dhigay commentiyada kuwii 4 sano iyo 5 sano ka hor ahaa ma soo qaadin waa ka dhacay waxa idin soo qaaday wixii 2 sano iyo wixii ka dambeeyay bal waaya commentiyadii qoftaas meesha la soo dhigay loo qoray aan idin la wadaago waa 2 sano ka hor wuxuu taagan yahay kagsanay xabsi ma ka soo baxday xaytaa sa u taalo waa 2 sano ka baa barnaamijka aragtida dadweynaha waa soo daayay ma aha reer comment laan 2 sano iyo 5 sano ka hor meel u daadan jiray Villa Soomaaliya jabsaday oo Villa Soomaaliya tan intee ka soo gashay kulaha waaba shaydaan yare waa 2 sano ka hor 2015 kulaha ilaa wadanka bahal galeen oo Obama isdhaqay oo waliba caata ah waa sanad ka hor reer aakhiraadna ma yimaadeen kulaha Soomaaliya inna lillahi wa inna ilayhi jinkii ugu horeeyay oo kaamirad qabato way kulaha subhanallah ilaa iyo hadda nin inaag wuxuu yahay ay wallahi aniga xataa waa kala saar lahay hadda nin miya mise naag waa naag anaga iska caminanay nin inuu yahay laga yaabo oo xaaladuhu jeexjeexeen waa yahay intaas uma dhaafeeno barnaamijka waan ugu dheeraaday intaas aan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka aragtida dadweynaha barnaamij ku qanciyo oo qurux badan waa iga diyaar adigana comment qurux badan like iyo waliba subscribe